xuduud Itoobiya waa la leenahay halkaas dekada qallalan leenahay reer Beledweyne hadaan nahay hawl badan iska haysanaa laakiin faa'iisay sooma uma Beledweyne Hiiraan State soo dad iyagu markii hore siyasay ma ahayn markii ay hir qaateen soo qaladkooda ma ahayn anuu qaladkooda inay taan qabo way fiiri reer Beledweyne laba wax way ku dhaceen labada waxa ku dhacay waxay tahay ugaaskoodii markii la asaasay meeshaan way ka carareen qofkiisa ka carara halkaas waxa ka baranaysa 10 ugaaskoodii magaalada aada orgi baadiyaale baa leeyahay ridir arig ayada ka cararta ugaaskoodii way ka carareen nimanka eliidka ahaa oo reer Beledweyne waxay hoos tageen Jowhar hoos tageen iyagoo heli karay inay dhahaan magaalo madaxda annaga hadal gobolka Hiiraan meel kamid ah hadda ha laga dhigo iyagoo heli karay bay waxay geeyeen Jowhar hoos geeyeen markaas waxay ku leeyihiin madaxweynaha weligeen ahaanayna madaxweynaha weligood ka dhigay taas koo waa dhibka kale oo ku dhacay waxay ahayd hadda markay afduubka iska saareen oo ay ku dhiiradeen oo ay sharafta iyo karaamada aragtay Soomaali ku dhex samaysteen baa waxa loo bedelay isbaaro afduubka la iska saaray waxa loo bedelay busaaday isbaaro Beledweyne gudaheeda isbaara looga kala cararay waxay samaysan kari waayeen ciidan xasilin ah ee magaalada Beledweyne dhexdeeda ilaaliya ee cashuurta iyaga ma aragtay qaada cashuurta iyaga isisiya amniga magaalada Muqdisho ilaaliya gobolka Hiiraan sumcadooda ilaaliya oo ka ilaaliya isbaaro iyo wax la dhigo intaasna way samaysan kari waayeen oo Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku dhex furay carqalad oo ninka Ali Jeedi intuu gudoomiyanimadii ka qaaday buu nin kale ma aragtay uu saariyay taasna dhibaatada labaad oo reerkan dhabarka kaga jabtay taas waa dhibaatada saddexaad waxa ka baranaysa inta sacabka tumi lahayd noqon qof sacabka loo tumo taasna waa ka baran inta sacabka tumi lahayd adi noqon qofka loo tumo qofka qof hoostiisa gala qofki isagoo waxaysta qof hoostiisa gala meeshaas u dambeynaysa taasna waad ka baranaysa qolo aan miis la fadhiyay baan waxaan ku yiri idinka qaladkiina waxaan ku dhacday baan ku yiri because Beledweyne waxay ahaayeen magaalooyinka Soomaaliya qadiimka ahaa maba ahayn saacadan inaad hoos gashaan in magacyo kale leedin bixiyo ana ka عجبوي waxaan rabaa inaan idin sheego adiifa isab ana had garwa kaym waxa dhacday waxa isla soconay gudoomiye gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaji Abshir Khanqaan kala dhaw fiiriya aniga asaas la soconay dawrkiisa saaranahay gaarigi hortiisa waxa lagu horgooyay gaari kale ciidan waxa ka soo dagay ninkii booliiska xukumo Moomin wuxuu yiri baabuurkan soota amarkan soo rogay ee ahaa waa baabuur walba oo dawladda ay leedahay waa inuu number qaataa soota iri waay baabuurkan uu number u yeelan waayo maxaa dhacay markaas yiri taliye wiilashii mid buu u yeeray wariya kale aw sootan ku yiri baabuurka numberka ku xirman kaas gudoomiye boolashi baabuurkan ku xiraaya mid ilaawe markaas yiri dhageyso amar baan ku siirayaa hadda waa ku sii deena laakiin baabuurka bila number wadatid ma arki karo nabadayna hor uga dhaqaaq fiir kala dambayta meesha jirta kawra cajab